السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخياري ملك استوديونك أكجوكتا وين السلامي مقعي وانا نصر حسن عليها الكاد كده وانا سوا نصري سوم شو إن شاء الله ما انتو حكالنا برنامج كين ما انتو حكالنا برنامج كين نلشها وأنا ويكست أسوق لنا برتا أنا كلنا يوتيوب كا يعني أنت بدنا برنامج كان حسوق لي سناب شات كيجا يعني سيدا أقسمتي نصر سوم مركز وحساب إن برنامج كعنتدا برنامج كنلشة برنامج كنلشة نحن نقون كرا وحياة بدن سيدا إن أقسم بندقنا يوتيوب كنا هرمر بالشدة farxadda bulshadeena haddii dhibaato wadanka ka jirta in lagu soo bandhigo qof horumaray qof nolosha meel ka gaaray taasoo nasrasum lagu yaqaan asxaabteedii snapchat-ka ayaa waxay ka codsadeen barnaamijkan aan maanta ka hadli doono haddii ilaa yirahda ayaan waxaan soo geliyay shalay meheedaraad snapchat-ka waxaan soo geliyay barnaamijkan shalay meheedaraad snapchat-kayga asxaab badanna waxay ugu dhiirigeliyeen dad badan ayaa jiro oo aan isticmaalin snapchat-ka waana u fiican tahay inay dhageystaan wax badanna ay ka anficayso waxaan kaa codsanaynaa nasrasum inaad soo gelisid youtube-kaaga si bulsho badan ay ugu ceshtaan inuu arkaan barnaamijkan aawodid ilaahay ayaa maanta ii suurtageliya insha allah saxaabi kusoo dhawaada barnaamijkeena dhammaan inta saxaabta snapchat-ka fareenkii ugula ah iyo inta igu cusubba soo dhawaada sida wanaagsan ee barnaamijkan ila wadiin aniga keligay ma wadi nasrasum asxaabteedana keligeed ma wadaan waa nala wadeen insha allah soo dhawaada wixii ra'yi ah ama wixii fikir ah emailkeena inoogu soo dira insha allah bulshadana usoo bandhigi doona hadduu rabbi raali ka noqdo waan idin soo dhaweynaa dhammaan inta nagu cusub haddaa nagu cusubta subscribe youtube-keena haddaa aad hore aada naga mid aheedna waxaan kuu rajeynaynaa inaa wax badan aa ka faa-iida hadduu rabbi idmo haddii ra'yi aa haysid maskax aa haysid nasrasum waa gurigaagii inala sheer garay insha allah soo dhawaada asxaabta cusub insha allah maanta barnaamijkeena nolosha ayaa waxaan kusoo qaadan doonaa hadduu rabbi idmo qalbiga wanaagsan toobigana waxaan kusoo qaatay 6 qodob oo aan qaadaa dhigi doono barnaamijkan qalbiga wanaagsan wax badan ka hadlay asxaabteeda asxaab kamid ah oo snapchat ku jirta waxay soo codsadeen barnaamijkan dib ugu soo celiyay youtube-ka marka daawasho waxaan insha allah qalbiga wanaagsan waxyaabaha lagu garto iyo qodobada uu ka mid yahay waa 6 qodob 6daas qodob ayaan qaadaa dhigi doonaa hadduu rabbi raali ka noqdo qodobka ugu horeeya waxa uu noqonayaa oo number 1 ah numberka koowaad u rajeey walaalka ama walaasha horumarka wanaagsan haddii qof walaalka u rajeysid horumar wanaagsan ilaahay adigana wuxuu ku rajeynayaa horumar wanaagsan farxad iyo nolol wanaagsan taas oo ay noqonayso mustaqbalkaaga mustaqbal qurux badan oo dad badan oo ku caawiya ah heshid maxaa yeelay markaad ummadda u rajeysid horumar wanaagsan iyo farxad wanaagsan ayaa adiguna waxaa gaaraysaa horumar aad u qurux badan taasoo bulshada dhan ay kugu farxayaan laakiin haddii adiga keliya wax kasta isla rabtid oo qalbigaaga keli uu jecel yahay inaa adig keli horumar gaartid aad walaalka ama walaasha aad la jeclaan horumarka bulshadana waxay noqonaysaa bulsho horumarsaneen bulsho mugdi ku jirto bulsho markasta dhibaatada iyo faaqidaada iyo dulmiga ku badata taasoo anagana inoo noqonayso mid dadka aan uga dambeeno marka insha allah bulsho qaar waxaa jirta oo qofka kale aan horumar u rajeynin insha allah ilaahay waxaan kaaga rajeynaa inuu qalbigaaga wanaaga bulshada ama walaalka ama walaasha aada u rajeysid insha allah lambarka labaad ayaa wuxuu noqonayaa noqo mid yaqaano dantiisa ama danteeda qofka markuu dantiisa yaqaano oo dantiisa garanayo horumarkiisa garanayo waxa u fiican garanayo ayuu tan kale bulshada ka fikiraa laakiin qof aan dantiisa garanaynin waxa uu sameynayo iyo waxa uu qabanayo waxa horumarkiisa ah ama waxa uu ka rabo nolosha mustaqbalka ama xayaatada ilaahay uu siiyey hadduusa garanaynin qof kale walaalkiisa ayuu ku mashquulaya ayuu dulminaya ayuu been ka sheegaya ayuu xumaan u rajeynaya ayuu rajeynaya inuu labada lugood ka jaro taasna waxay ku noqonaysaa mugdi ama dhibaato aada u weyn marka bulshadeena waxaan kula dardaarmeynaa hadduu ilaah yiraahdo annaga haddaan nahay bacda nasrasum in ay waxyaabahaas oo dhan aan ka tanaasulno aan noqono bulsho markasta horumarka iyo wanaaga iyo farxadda iyo qalbiga fiican ka talisa ilaahay inuu naga dhigo maxaa yeelay hadda for example qof walaalka markuu wax wanaagsan soo bandhigo ama wax wanaagsan oo adig kaaga fiican yahay uu soo bandhigo la sheergaray walaalahaaga kale waxaa laga yaabaa haddii adi aad taqaanin laga yaabo inuu qof kale uu aqoonin haddii xitaa adi waxyaabo oo ku horumartay aad soo bandhigtid waxaana kusoo horumaray waxaana ku fiicnaaday waxaana ii shaqeeyay businesskeyga intuu ka bilowday waxaa la helayaa dhalinyaro badan oo kugu daydo ama qof kugu daydo si ayagana u horumaraan laakiin haddaanu nahay soomaali waxyaabahaas way nagu yaryihiin marka insha allah aan noqono dad markasto ka taliya wanaaga iyo horumarka qofba qofka kale qodobka saddexaad ayaa waxa uu noqon doonaa ha noqon xaasid wax fiican maahan ha noqon xaasid ka xumaada horumarka qofka kale ee u dadaala naftiisa ha noqon mid ka xumaada horumarka qofka kale ee u dadaala naftiisa waxaan ogala jeedaa qof waqti geliya noloshiisa horumarkiisa waqti geliya juhd badan geliya
noloshiisa suu u noqon lahaa qof maanta noloshiisa heer ka gaara, farxad ka gaara. Qof walba higsi ayuu leeyahay, horumar ayuu leeyahay, mustaqbal ayuu leeyahay, wax ayuu doonayaa inuu qabto. qofkaas yaan la yasin ama yaan niyada laga jibin ama yaan la dhihin muxuu isku hayaa. ha noqon qof walaalkiisa kale niyad jabiya, ha noqon xasid walaalkiisa kale horumarka higsanayo, xayaatadiisa rabo inuu heer gaarsiiyo, ha noqon mid ka jajabiya. maxaa yeelay maanta waxaa daa qofkaas niyad jabisid ama horumarka aad ka hor istaagtid ama xaasid ku noqotid ama qof nolosha kale ka xun aad noqotid, horumar walaahi ma gaaraysid. qalbiga wanaagsanna taas ma aha, waa qof qalbigiisa aan wanaagsanayn. maxaa yeelay waxaa laga doonaya inaa walaalkaa oo horumarka rajeynayo inaa wax wanaagsan aa u rajeysid, farxad aa u rajeysid. haddaa u aragtid xitaa inuu waxaan sameyn karin aa dhahayd waa sameyn kartaa, taas annagan horumar ku gaarayna. qodobka afaraad ayaa waxaa uu noqonayaa noqo qof anfaca bulshadiisa, u horseeda horumarka wanaagsan. noqo qof anfaca bulshadiisa, u horseedo horumarka wanaagsan. macnihii haddaa wax wanaagsan aragtid ama waxaa is dhihi karta bulshadeena horumar ayay ku gaaraysaa, usoo bandhig, hala baqaylin, hala baqin. wax aad u aragtid inay wanaagsan yihiin oo qof kale ku dhaw wuxuu yihiin, ha fiirinin, soco, noqo mid horumarkiisa ka taliya. waxaan uu arkay inuu bulshada ku qancin karo usoo bandhig. maxaa yeelay maanta maalin aan ahayn ayaad horumarka gaaraysaa. qofkii qalbiga kaa jibiyey ama ku niyad jibiyey ha u istaagin. berito waxaa u noqonaysaa tusaale, role model aa u noqonaysaa. berito wax qof kale uu ku sameyn lahaa ayuu ka haraya, aduu kugu dayanaya. marka noqo mid bulshadiisa waxa wanaagsan usoo bandhiga, oo bulshadiisa dhiirigeliya, oo bulshadiisa farxad geliya, oo bulshadiisa gacan qabta. gacanta kelima ah lacag lagu siiyo, aqliga. for example maanta anaa youtube leh, horumar ayaan higsanaya, waxaan rabaa nasrisom inay tv noqoto. qof kalaa rabo inuu youtube soo galo, ma dhahayo waa adag yahay, wuu dhib badan yahay, shootingkiisa aada u dhib badan yahay, editingkiisa easy ma aha. qofka kale horumarka rabo laga yaabo waxaad ismeynayso uma soo socdo, laga yaabo inay gabar saalon qurxinta ku fiican tahay inay soo bandhigto. aniga waxaa laga yaaba inaan qurxinta waxba ka aqoon aan ka barto. laga yaabo inay guryaha sharxadooda taqaan, caawi. laga yaabo inay cunto ku fiican tahay, caawi. haddaa xataa cunto aday karinaysa ayada karinaysa, ha dhihin qoftaan amay lugta anay dhixirtaa. irsaaqadaada rabbiga casiiska ahaa oo ku khalqay oo nafta ku geli ayaa kuu haayo. haddii qof walaalka uu business ku jiro, uu rabo inuu china aan business rabo inuu furto, ha noqon mid waxaan waxba lagama keenay anaa ku qasaaray. haddaa ra'yi oga dhaanta ama wax aa ku caawin karto ku caawi, siduu ilaahay waxaan wanaaga aa ku jirto uu kugu barakeeyo. marka bulshadeena waxay u badan tahay dad fiicanna way ku jiraan, dad xunna way ku jiraan, laakiin inta badan waxaa u badanahay dad aan horumarkooda ka talin, dad aan qofka horumarkiisa sheegin. weli ma arkin ani qof Soomaali ah oo intuu business horumarka gaaray ama wax horumarka gaaray soo bandhiga oo dhaha ani saanay ahayd, ani kana kusoo horumaray, kana ku qasaaray, kana ku faa'iiday. si berito dhalinyarada koraysa ama ubadka koraya ama dadkan soo baxay ay kugu cibro qaataan dadka ajnabiga ah ama wadamadan qurbaha aan ugu imaanay. wax kasta oo wanaaga ay u arkaan inay ku horumareen, taariikhdooda ay ka sheekeeyaan. marka adiga laguma dhahayo taariikhdaada waxaa xun aa soo martay, waxa fiican ka sheeg. only waxaa la weydiinaya horumar wanaagsan haddaa arag, haddaada soo bandhigi karin xitaa dadka kale oo u baahan inay caawisid, caawi. qodobka shanaad ayaa waxaa uu noqon doonaa hadduu rabbi raali ka noqdo, noqon markasta qof ka hadla wanaaga ummadda kale. wanaaga ummadda kale inaad ka hadishid markasto. haddaa aragtid xitaa qof walaalkaa oo wax xun sameynaya, wanaagiisa sheeg. laga yaabo ilaahay wanaaga ah qofkaas aa u rajeysay inuu sidaa uu ilaahay ugu wado. ha noqon markasta qof sheergareeya xumaanta dadka, sheergareeya xumaanta dadka. intaa sheergareyn lahayd wanaaga dadka sheergaree, si dadka kale ay wax uga faa'iidaan oo wax anfaca ama wax horumarkooda kor u qaada ay ka helaan. noqon markasta qof ka hadla wanaaga ummadda kale ama la sheergareeya walaalihiisa kale wanaaga ay qabteen ama kaalinta bulshada ay ka sameeyeen. qof haddii aragtid bulshada kaalin weyn ku leh ama horumar weyn ku leh ama wax soo saaray ama business meel ka gaaray, la sheergaree bulshadaada kale. haddii xitaa aad video duubi karin, haddii xitaa bulsho horteeda aad ka dhex hadli karin, qoraal fi social media soo dhig. inta aad wax xun faafin lahayn, wanaaga ha lagaa faa'iido si berita markaa dhimatid dadka kugu soo duceeyaan. aan noqono dad markasta wanaaga ka taliyo. dad waxaa arkaysaa maanta dhan xumaantooda, xan wado, xasrad wado, isku darnimo wado,
adduunkan waa laga tegaya. haddii aadan adduunka ka tegin wanaag shaqayso, waxaa maanta shaqaysatid ayaa berita leedahay. qodobka 6 ayaa waxa uu noqon doonaa hadduu rabbi raali ka noqdo, ha noqon mid markasta jecel inuu qofka kale ka sheekeeyo ama nolol kale ku mashquulo. noqon mid ku mashquula naftiisa ama noqon mid ku mashquulsha nafteeda. markaa naftaada ku mashquulshid ayay ka macaan badan tahay intaad qof kale ku mashquul lahayd. maxaa yeelay markaa qof kale ku mashquulshid adiga ayay wax kaa go-ayaan, laakiin marka adiga isku mashquulshid adiga ayaa wax badan faa-iideysid. marka adiga wax faa-iideys annaga ayaa wax kaa faa-iideyno. marka annaga wax kaa faa-iidno ilmaheena ama ilmaha walaalaheena ama dariskeena ama dadka xaqa nogule ayay anfacaysaa. marka ha noqon mid wanaaga laga faa-iida, ha noqon mid xumaanta laga faa-iido. noqon mid bulshadiisa magac ku leh. maanta aniga Nasra ah laga yaabo waxyaabo badan inay ugu dhaantid. haddii wanaagaaga aan barto berito anay anfacee, nafsadeyda ay anfacee, walaalkaa kale anfacee, dalkaaga ay anfacee, dadkaaga ay anfacee, diintaada ay anfacee. markii bulsho fiican aan nahay dadka xitaa waxay dhahayaan diinteena macaankeeda iyo wanaageeda iyo sharafteeda, dadka xitaa way nagu cuseenayaan. laakiin marka anaga jaaliyad ama ummad xun oo midba midka kale ka xumaada nahay waxba inooma tarayso. marka noqon mid walaalkiis markasta wanaaga u rajeeyo, noqon mid markasta qalbigiisa wanaagsan. haddii maanta aad aragtid video gabar ama wiil walaalka ama walaasha oo wax wanaagsan soo bandhigayso, share garee. noqon mid qalbigiisa wax kastoo wanaag oo dadka u rajeeyo. kadaalika haddii maanta aad aragtid wax ku qanciya oo wanaagsan oo aad ku farxada, la share garee familkaaga iyo ehelkaaga iyo dadka aad taqaanid. maxaa yeelay marka aad la share gareysid laga yaabo dadkaas aad la share gareynaysid inay ku jiraan dad cuqdad badan oo qalbigooda cadownimo ku jirto, jeclaan horumarka dadka kale. waxaad u noqonaysaa hormuud, waxaa u noqonaysaa mid adiga ku daydo, waxaa u noqonaysaa mid qofkan wanaaga ayuu share gareynaya bal aniga aan share gareeyo. laakiin marka ay imaado heblaayada ma aragta saweegad, hebelka ma aragta cunugiisa asaaskan noqon, hebelka ma aragta xaaraan ayuu aroorsaday, waxaas wax fiican maaha. adiga markasta wanaagaa sameey, qofkan kale xumaantiisa asagay u taalaa. adiga markasta waxaa kuu fiican inaad qalbi wanaagsan heshid. qalbiga wanaagsan waxaa weeyaan qofka kale wanaag u rajeeya, qofka kale cabsida ilaahay u rajeeya, qofka kale horumar u rajeeya, qofka kale dhaqaale u rajeeya, qofka kale walaalkiisa inuu wax barto rabo inuu waxbarasho kheyr wanaagsan u rajeeyo. marka insha allah aan noqono dad markasta wanaaga ka taliya, aan noqono dad markasta horumarka ka taliya, aan noqono dad markasta dadka la tartama horumarka iyo bulshada iyo Soomaali. ani marka hadda barnaamijka nolosha aan ka hadlayo dad badan waxay iga soo weydiiyaan, Nasro gabar fiican aad tahay, Nasro dadkaaga wanaagaa la jeceshahay, miyaa lagugu mashquula? dadaa telefoonkeega intay soo wacan dhahay, Nasro barnaamijka maanta aad ka hadlaysid adima kugu saabsanaa, madadaa kusoo dhibeen, madadaa kusoo foodeen. barnaamijkan ani kama hadlaayo nafsadeeda, kama hadlaayo nafsadaada, kama hadlaayo qof bini aadan oo koomkaan saaran, laakiin waxaan ka hadlayaa waxyaabaha bulshadeena ay u badan tahay. markastana waxaa fiican in laga hadlo. hadda dadka ajaaniibta ama dadka caalamka ama dadka wadamada horumaray ama carab ama muslim ama asia ama gaal, wax kasta ay ka hadlaan ay soo bandhigaan, ama youtube ay kusoo bandhigaan ama tviyada caalamka kusoo bandhigaan. waxayna ka hadlaan qof walba wuxuu u jecel yahay uu ka hadlaa. wuxuu jecel yahayna wanaagay noqon kartaa, qof hantidiisa horumar ku gaaray, qof dhaqaalihiisa horumar ku gaaray, qof meel uu kasoo shaqeynayo taariikhdiisu ka sheekeyna. marka waxaas dhan adiga oo laga yaabo inay ku haystaan waxbaa ka faa-iiday. marka qof walaalka dhageyso storyga inta hore ha ka dhageysanin. marka warka la dhageysanayo qodobada ugu horeysa la dhageystaa sax, qodobada ugu horeysa barnaamijka ha dhageysanin, noqo mid waxa dhan wada fahma. markaas ayaa garanaysaa barnaamijka meeshuu ku socdo iyo meeshuu ka socdo adoon waxba dhageysan. haddaad dalaq meesha soo lahayd ama message soo qortid, qofkan bini aadanka su-aasha aad weydiinaysid ma aha wax laga yaabo adina xumaan ka ahayn, laga yaabo inaan qofkan ama message ku qortid aad support gareynaysid aad la jirtid, laakiin ha degdegin. degdegsiimada badan ma fiicno. qof degdegsan haddaa noqotid wax badan ayaad baska ka dhacaysaa, ama waxyaaba badan ayaa waxay kugu noqonayaan cajiib. wax badanna haddii cajiib kugu noqdaan noloshaada markasta waxaa kuu noolaanaysa shaki iyo duwan. marka insha allah dad aan noqono oo horumarsan, dad aan noqono wadankooda horumar gaarsiiya. dhalinyarada annaga waaba soo korno waa weynaanay, waxa maskaxdeedana ku jiro kuwa soo socdo hadda dhalanayo
dhasheen sanadka jiro beri ha naga dhaxlaan. maxaa aad doonaysaa in lagaa dhaxlo? aniga waxaan doonaa in laga dhaxlo inaan markasta wanaagga ka hadlo, inaan cuntada ka hadlo, inaan horumarka ka hadlo, haddii ilaahay ii furo faraj khayr qabo inaan masaakiinta caawiyo, inaan masaajida badan dhiso, inaan qof walba horumar u rajeeyo oo Soomaali ah siduu ilaahay igu ogyahay. marka adi qof wanaag u rajeysa ilaahay wax kasta oo qalbigaaga ku jiro ayuu ku siinaya. waxaasna waa waxaan soo ogaaday aan soo arkay. marka mar qof caawisa adi beri qof ilaahay ku caawiyo ayuu ku siinaya. ilaa adi 100% ma tihid. laga yaabo maanta baabuura meel cidla kaaga jabaayo, laga yaabo qof gaal inuu ku caawiyo, laga yaabo qof muslim inuu ku caawiyo, laga yaabo qof Soomaali inuu ku caawiyo. marka midka kula dhashay laga yaabo inuu ku caawin qof kale uu ku caawiyo. ilaahay markasta kuma dayacay hadaa markasta wanaag ka hadashay. insha Allah sheekada ma sii dheeraan doono. barnaamijkiisa kale intaan ku kulmi doono insha Allah waxaan idinkaga tegayaa subscribe haddaan nagu cusub tahay, qaybta guduudan taabo subscribe ku dhufo. markasta message-ka waxaan soo geliyay message aan kuu soo dhacayo Nasri Som waxaas soo geliso, cunto ha ahaato, lifestyle ka ahaado, snapchat-keena insha Allah qaybta yellow waaye nagu soo darso. wax kasta aan soo geliyo halkaas ayaa kala soconaysaa. maxaa yeelay snapchat-keyga markasta waxaa soo geliyaa barnaamijka nolosha, cunto karinta, waxaanay anfacay, dukaamada ka soo adeegtay, waxyaabahaas dhiig karo dadka kale ka anfacayaan ama ka faa'iidayaan. Facebook-keena page-ka like saar Nasri Som waaye, Instagram-keena waa Nasri Som Food, Snapchat-keena waa Nasri Som Food. marka insha Allah aad u mahadsantihiin sida wanaagsan ay taageertiin, sida wanaagsan farxadda ay tagsitiin. asxaabteeda Snapchat waa idin salaamay. la-aantiin qof maanta aan ahay ma ahaadeen asxaabteeda social media ku wada jirta idinkana waa idin mahad celinayaa. aad u mahadsantihiin. waxaan idinkaga taagayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. balanteena waa inaan subscribe gareyno Nasri Som si aan ula socono waxyaabaha cusub ee soo geliso ee la share gareyso bulshadeeda.